koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesho xubinta kalamaan maalin walba fadlan subscribe sar page-kan Dulmidiid Media arnimay oo hali wal yaabi yaaba kuusreedana ma iliya badnaayay turiya may baaska gooy heesta huriid soo rooga beledweyne meel leeyahay meerika saasanaysan goorma ladnaanaye lehdankii lugooyadii la deedaye badal wariyaa badal ma taqaanid heesta naga dhageysannaga goormaan islaaynaye sagaashankii meeqaan lugo sideed iyo 20 sano war xalay muqdisho farmaajo u shidneed war ma sida xalay dhuuso mareeb qeyray u shidneed war naga tagay Hargeysa musabbixday u shidneed wariya ana qabato bi xalay waad noo shidneed war codkaan ina xagee nooga yimid hadeer fad ama hafadin walaahi wala qufadasin war ma isaqow ninkan dadi ka yarad miya war dadi oo yarayti ma fad misan faday walka fadsiyad biligi oo ka haysada war ma haysaan tabaaldaga xorriyadana kaba hadna qayb gelin na dhageystaynaga gobolka banaadir xala saylici iyo batara lagu ciyaaray shiribkiina dib loo dhigo waqtiga ka dhamaaday muqdisho hadii shirib la gadaalnandaki ali meelin ku waraabi jireen ku waraabi war hada waxaan ka iri miyaa lagu dheelo arruuya xaajirina ma dib loo dhigay war waxa xalay dib loo dhigay war rasaasti la ridi jiray bulaleeray noo shidneed magaaladu war rasaasti ay ka go'doomiyaan tiri warkaan laga dhex gelinina dad maranaatihiin xala madaxweynuhu waa ka khudbeeyay munaasabada xurriyadda wuxuuna yiri Somaliland iyo Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in wada hadalkii dib loo soo celiyo marka waxaan la yaabana madaxweynaha isaga la doorto mas'uuliyadda loo dhiibay yaa waayay cid ugu baaqayaa in wada hadalka soo celiyaan marka waxaan dhiilaa maalin baa la doorto dalka maamulkiisa iyo majaraha u dhiibnay goorma laga meershi warwarna haysida waa Muuse Biixi qofkii xalay ka qudbeeyay xaflad ka dhacaysa magaalada Hargeysa wuxuuna yiri wada hadalkii waxa hortaagan dawladda Soomaaliya wuxuu sii raaciyay masirka yaga Soomaaliya kala hadlayne dasha caalamkan kala hadlay doona marka anigu waxaan la yaabanahay Soomaaliya hortaagan ya kala hadlaymayno sidoo isku qabadsiiyay war Muuse Biixi farmaajo waxaan ku talan lahaa inay mikrofoonka iska dhaafaan war waa inqilaab waxaagu yaa dalka xukuumaya aday aamusaan war wuxuu ku yiri wax kasto iraadada hadii laga xanaaqayo mikrofoonka la ilaaha gabiyaantiisa mana hadal jeclaadeena waan aamusi lahaay intaasaan ku soo koobay ayaana sii badin war ma haysiine xalay dabaaldegi 26 Juun ee Muqdisho wariyaal baa lagu jirdilay war hoob wariyaalka leeba jirdilayaan may uniyo awlaadano goorma ladnaanay ninka dhafariyay warnamayaan waxaan la yaabanahay wariyaasha meeshii xaflada oo farxada oo lagu dabaaldegay hadii lagu jirdilo meeshii qarax ka dhaco balaayo ka jirtana lagu jirdilo xagee ku nabad galayaan warnamiya wariyaasha hees cusub laga rabaa heestaasna waxay leedahay anaka waa nala jirdilay afkani baa joogda gabay warninkii helaa talo wacan hele wariyaha xaq dhowr dhaydkeedii ma dhacay war tabaranku waa ilmantun degma leh margareed afkii baa joogda gabay war ma haysiine meesha ay xalay ka shidneed waa dhuuso mareeb horta nima waxaan la yaabanahay kalamaan ma gudoomiyayriisoo baa ku soo biiray halkaasay ka shidneed badana warnaya aamus hees liiraa yartu way shidantaa jirtee warkaa naga dhaxgelin inayna dhageysta ra'iisul wasaare khayr xalay markuu ka hadlay xafladii dabaaldega waxa uu yiri dhulka gaduudan oo darkaysiin dayman baa dhex yaal wabina waa hoos mara in meel nimantii arlaada ka faafay meelika naga fade warkaa ma fahmin in dhageyso waxa uu na tiriyay geerarkii Cabdullaahi Sultaan Cabde ee sareeyo manusqaamo aan sidoo yahay eegno ka nasiib ka nasaar haddana wuxuu sii socdaa magaalada Cadaado marka galmudug gacantiisa bay gashay sidii muuqata war hadda ka ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri barwaaqan idin soo arkay reer galmudugna wuxuu yiri dekada hobyo asbuucan gudihiisaan dhismeeda idin bilaabaya marka taasi baa dayir gal weysay hadda reer galmudug dhaaman dhulka ka hooseysa miyay ka sugayaan waraadeer warkaas xaafa lugtu ku dhuftay war xalay xaaf xamar soo weerarine bulal bay hayeen ciidamada difaaca maxay hawada u tabxiri waayeen marka war horta liman yahaw xalay balweene waxa ka dhacday xafladda 26
juun ka dhacday hadda madaxweyne waarana ma tagin yuusuf dabageedna ma tagin yaa loo dhiga marka xafladda wastima cadama yimid war ciidamada jabuuti hiil walaal ka qayb galay qurib waa kuwaysiin anaga marka waa dhegaysanaysaa aamus waa barito baaska walda dakari ya amaro shan waxay warabaan wali waraba wali anta waa ka kayn maamuliya madaxtinimada dalka waa ka waraba ma qarabta afgabidi soo waa sameeyay wala soo waa khufan waa faashay lamad wala soo qabqabti inta kale waa la qota bajira تخاجك شهتا ولا قصوتينا وريه ولا لا معو يا احمد مراكبته هدا بدا سو غاريان ما يري ابكادي waa ka dhacsantaa ma shidinid war wakiilka cusub ee qaramada Soomaaliya waa yimid marka galmudug iyo Jubbaland ma ku fashilmi doonaa ama nabad iyo nolol waa isfaami doonaan war nabad iyo nolol wakiil dambe qaramada midoobaad ay isqabtaan ayaga ka daran abu dhoof asaas ku raadsanaysaa miya saaxo war ma haysiine dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya ee maxkamadda adduunka hortaalay waqtiga ay dhacaysa la cadeeyay waxayna bilaabanaysaa bisha September ee sanadkan marka nimayo waxaan ku talilahay dadka Soomaaliya way qayb galaya dad wax inay noqdaan laakiin hadii la geeyo ilmo yar yar oo qurba joog oo qabaarmo oo xiirxiiran waana laga guuleysanaya war dadkan xiirxiiran waxba ma oge quuradii badeena iyo dhulkeena dadka ka nool oo xil saaran wariya badeena oo Soomaaliya kan waa isku haysato ana ka waxalinaysa buga ama arkaan oo badlaan ka hayt inoo gaato fadaas war amxaar ma waa oromo asagana bad u baahan war ma aysiine halgan dagaal xorriyadoona ka dhacay awaleeda halgan ahayd inay xorriyadooda u halgamaan waa sax war halgan Iiraan ay ka tirsan tahay ma taqaanidana dhageyso shabaab ay waxa ku dagaalamay macawisley waxay dhaheen waa ka adkaan shabaab warkii bayaalay reer baadiyo isku leynayeen ma laga heshii warkii buura ka dadka badan ka dhamaadeen la keenliyay aqwalwalin kulli idamaaniga watiraysa waa kale nabad galis war adigu dad waalan baatihiin xorriyadan u dabaaldega toddobaadka xorriyada lagu jiray wartaysiga Facebook waxay soo dhigtay toddobaadkan wadooyinka waa xiriin warnimada toddobaadka xorriyadan ku jirna heeska la yiraahdo aan maal lahasheen mandeeq abwaankii sameeyana waa dhintay abwaan sangu hal maalin ka horeeyay abwaan saardiid maxamed la oran jiray cid soo hadal qaadana ma aan arkin Allah u naxariistay marka xorriyada loo dabaaldegayo iyada nafteena la isku xaqiraya war maandeel la sheegaas intii mar hore lagu goorisay bariid ilmo lanka daradi runta afka aan la qabi ma qarka maandeeq aan waa leeyahay qadi warnimada waxa la yiri dadka yaga go'doonkiyo ku jira guri madoobaad dadka yaga cadaawu garbiyay lana gumaadayo dadka yaga sidii loo gadiyay loo gagabinayo dadka yaga la ganay ee la gubay lana garaafeeyay dadka yaga gubaysugu hantiyay ee gacmaha laabtay dadka yaga xabsiga lagu guray dawgi laga gooyay warnimay u gaardinahayaan ma aha shay garahe gedda looga jeediyo macnuhu ganacsi weeyaan war gurigaaga Allah bixiye Soomaaliya lama gumaysane hadda yaan la gumaynin afkadi lama gumaysiyo wariya ma noo xaqadiisa wariya war ma anaga la gumaysan karta ma la gumaysan karaan